waxaan halkan ku wareejinaynaa agabkii isboortiga isuduwaha ciyaaraha oo ay kaga soo qayb galeen dhalinyarada sida fiican u ciyaaraysa iyadoo la garab taaganahay iyo hooba markasta halka waxaynu hor yaalla agabkii isboortiga ee xisbiga kulmiye ugu tala galay dhalinyarada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan gobolada oo dhan qayb kamid ah oo gobolka Awdal maanta magaalada Booramo oo ku wareejin doono isku duwaa isboortigan hore ugu wareejinay ayaa maanta isku duwaa isboorti wuxuu ku wareejin doonaa garoonkan Ayuub marka waxaan leeyahay dhalinyarada xisbigu wuxuu inila garab taagay yahay mar walba heel iyo wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam amma ba'da gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal gudoomiye ku-xigeenkiisa xogayntiisa xubnihiisa kale garabka dhalinyarta qaybta isboortiga garoonkan maanta joogno madashan maanta gudoonsiinayno maxay ahaydeen Jimcaale Cup Ramadan Cup oo ay mas'uuliyiin ka yihiin Ayuub iyo maxay Sakariye dhalinyaro noocaas ay ka maaragtay mas'uuliyiin waxaan ku wareejinaynaa oo hore ay ugu keeneen gudida ama gudoomiyaha iyo xubnihiisa kaleba ay ugu keeneen oo xisbiga kulmiye uu soo bixiyay agab isboorti oo aan u qaybiyay 7 garoon oo magaalada koobkiina weydin dambeeya oo waxaan idin keeni doonaa maalinta finalkan idin keeni doonaa hadii rabbi qadaro aad iyo aad baad u koromaatantiin xoraha mahad ilaahay soo keenay caafimaad qabna inoo soo tageliyeen xalfadeena iska qabsano kulay waa bishii barakaysnayda khayrka lahayd koobka Jimcaale Cup lagu soo booqdeen xisbiga dalka taladiisa haya kulmiye waxaan aad ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga iyo xoghayaha iyo gudoomiyaha dhalinyarada waxaa soo kale aad ugu mahadcelinahay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Xasan Saciid Dheeleel agabka markii hore waxay nagu ballan qaadeen koobka markuu bilowga ahaa nagu yimaadeen nagu soo booqdeen garoonka maanta waxay ka rumeeyeen agabkii ay maalintii ay ballan qaadeen oo ahayd in markii semifinalka loo baxay noo keeno oo ka gudoonay oo uu hogaaminayo Ayuub iyo tiimkiisa ayaan halkan ugu nimidnay waxaan u ballan qaadnay inaan ka caawino afarta kooxood ee semifinalka iskugu soo hadha iyo koobka iyo biladaha marka maanta waxay ahayd maalintii ay afarta kooxood ay isku soo baxayeen halkan marka waxaan soo gudoonsiinaa afartii kooxood garoonka Jimcaale iskugu soo hadha semifinalka waxaan kaloo u keeni doonaa marka finalku gaarsiisan yahay hadii Allah uu daliidmo koobkii ay kala qaadayeen halkan aan ugu keeni doonaa biladihii siday ugu kala guuleysteenna halkan aan idinku keeni doonaa hadii Allah uu daliidmo oo finalka kulay imka semifinal baad maraysaan aad iyo aad baad runtii ugu mahadsantiin sida wanaagsaneed u wadaan garoonkani waa garoon kamid ah 7 garoon ee xisbigu uu caawinayo ee daafaha magaalada ay ka socoto ciyaarta kubadda cagta ee koobka bisha barakaysan ee Ramadaanta aad iyo aad baad u mahadsantiin sida wanaagsaneed hawsha u haysaan waa kii koobaadeen marno hadda waxaan tagi doonaa garoonka labaad oo halkan ku yaala xaafad weyn Kuwait runtii xaafad weynta Sheekh Ali runtii aad iyo aad baad u mahadsantiin khayrkayga Allah nasiyo waxaanu joognaa garoonka Bada Stadium waxaanu imika isugu nimidnay dhalinyaradii ku ciyaarisay garoonka annagoo ku wareejinaynaa agabkii loogu taglagalay isboortiga waxaanu u muujinaynaa inuu Ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa ta'aala halkan isugu keenay garoonkan waxaanu joognaa sidii xogayuu soo sheegayba garoonkii hore maahan waa garoon labaad oo ugu tala galay xisbigu inuu siiyo agabkii isboortiga garoonkan waxa la waa Bada Stadium waxana mas'uulka ama gudigiisa yahay Bilaal iyo Xamse oo iyagu dhalinyarta koobkan qabatay marka waxaan maanta halkan ku gudoonsiinaa agabkii isboortiga ugu tala galay xisbiga kulmiye dhalinyarada kala duwan ee qaranka runtii ka xisbi ahaan runtii ma aha markii koobaad markii labaad tiimam hore oo runtii aan soo gudoonsiinay baa jirta maxaadeen agabkan maxaad isboorti kullay waxa weeyaan waa garab istaag dhalinyarta bishan barakaysan inaan ku garab istaagno wixii karaankayga ah aad baad 7 garoon oo kamid ah gobolkan Awdal degmadiisa Boorama oo aan maanta 2 kamid ah ku wareejinayno agabkii isboortiga oo ka kooban dirays 4 kooxood ah koobabkina u hadhan yihiin oo maalinta finalka aan maaragtay ku wareejin doono garoonkan oo ah Bada Stadium oo ay ku ciyaarayeen imsa kooxood baa 9 kooxood ay ku ciyaarayeen 9 kooxood oo waliba anaguna kamid ah waxaan halkan ugu mahadcelinayaa gudoomiyayaasha heerka qaran ee maxaadaanay halkan noogu keenay hadiyada Ramadaanta ay noo keeneen xisbiga kulmiyana kamid ah
waxaan leeyahay aad baan u mahadsantihiin tan iyo in ka badanba insha Allah waynu inaga sugaynaa garoonkii labaad aynu nimaadno Beda Stadium aynu waayo kooxihii waxay marayaan waa gabagabo semi final baa la marayaa marka maadaama semi finalkii la marayo ballantaan qaadnay waxa ahayd marka hore inaynu afarta kooxood isku soo hadha aynu siino aynu dareyskooga semi finalka ku soo gaadhay aynu dareyskooga siino marka maadaama ay afartii kooxood garoonada badidooda ay marayaan waxaanu dardar gelinay inaanu gaarsiino dareyskii aanu haynay garoonkan Beda Stadiumna sidaas uu kamid yahay roobaada ay runtii aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idin rajaynaynaa sidii wanaagsaneedeed horeba ugu wadeen inaad wadaan maalinta hadii ilaahay mo finalkana koobkii iyo bilad ugu ballan qaadnay garoonkan Qadar Stadium waxaan ugu talagalnay in afarta kooxood ee soo baxda semifinalka aan siino diriiska iyo koobkii maalinta ay ku lulmi lahaayeen iyo biladihii waa bil Ramadaan ilaahay naga aqbalo amalkiina aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada markasta soo dhawaadaan leenahay ka xisbiyan aad mahadskale mar labaad waxaan u mahadnaqayaa gudidan garoonkan Qadar Stadium oo ah garoonkii saddexaad ee maanta gudoonsiinana agab sporti oo ugu talagalay xisbiga kulmiye qalabkan sportiga waxa loogu talagalay dhalinyarta sportiga jecel maadaama sportigu tahay wax jirka dhisa ama sportigu yahay jirka dhismihiisa ka qayb qaadato waxaan leenahay xisbiga kulmiye ballantii uu qaaday dhalinyarada gobolka inuu sideeda u fulin doono wax walba oo dhalinyaradu u baahan tahayna uu la ag taagnaan doono xisbiga kulmiye ayaan inii sheegnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaa mahadle gudida soo abaabushay xisbiga kulmiye annaguna waxaan leenahay waa inaga guddoonnay assalaamu calaykum waraxmatullahi caadaday noo ahayd maalmihii hore waxaynu ku samaynaynay kormeer garoonada kala duwan ee ciyaaruhu ka socdaan oo 7 garoon gaadhayay degmada Boorame waxaan kaloon hore kormeer iyo agabka aan ugu soo wareejinay degmada Qulujeed waxaan kaloon u dirnay Boon iyo Xariirad oo iyagana tartanadu ay ka socdaan degmada Booramena 7 garoon ayay hawsha ka socdaan marka maanta waxaan xulanay 3 garoon oo kamid ah oo semi finalkii gaadhay afartii kooxood ay isku soo hadheen inaan gaarsiino afartii kooxood ay isku soo hadhay dareyskoodii aad iyo aad baad u mahadsantihiin ciyaaruhu kullee halkeena way xanaf badan yihiin waxa loo baahan yahay in si wanaagsan loo ciyaaro waxa loo baahan yahay in deganaan lagu ciyaaro waa wuxuu ciyaar waxa loo baahan yahay in walaalnimo lagu ciyaaro isjiijiidadka iyo baan idinku bogaadinayaa inaad ka ilaalisaan iyo isdilka dhaqanka inoo noqday aad iyo aad baad u mahadsantihiin kullee garoonkana waa kii saddexaad ee Qadar Stadium aan soo marno 2 garoon oo horaan soo marnay runtii waan ku faraxsanahay maalintii hore aan nimidnayna si fiican bay u socotay maantana si fiican bay uga socotaa maalinta hadii Allah uu daleedmo finalkana waan idin iman doonaa bilada la idin guddoonsiin doonaa hadii la